أنت أسكت النبي صلى الله عليه وسلم جورك مدي سووا كبوري حديث كذا الشيء وأخرين وهو هيا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج دلن يرو qofkii awooda inuu guursado oo heli kara wax uu ku guursado dhaqaalaha haysta jismiyan iyo jirkiisu oo awooda inuu guursado ha guursado nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay maalinta qiyaamo ummadayda ayaan ugu faarayaa oo dhahaya intaan waa ummadaydi qof kastoo muslima marka waxa laga doonayaa maadaama awooddaas uu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyay awooddaas inuu guursado si nabi sallallahu alayhi wasallam maalinta qiyaamo umadiisa uu ugu faano walaalaha hadda isguursaday mas'uuliyad ay fuushay mas'uuliyadda Allah subhanahu wa ta'ala gabadhana mas'uuliyad ay saaran wiilkana mas'uuliyad ay saaran qof walbaana waxa la doonayaa inuu ka soo baxo mas'uuliyadda Allah subhanahu wa ta'ala uu saaray nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis wuxuu ku leeyahay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyati qof walba oo usrada kamid ah waa mas'uul shaqo ayaa loo diray oo loo xil saaray qof walbaana waxa la weydiinayaa maalinta qiyaamo shaqadii loo diray sida uga soo baxay inuu gutay iyo inuu si gudan hadii qofku uu gudo waayo shaqadaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa Ghafuurur Rahiim haduu doonana uu cafilayaa haduu doonana waa lagu baanash gareynaya laakiin mas'uuliyaddu waxa way qof walbaahu waxa qofka kala xuquuqda uu ku leeyahay inuu guto uga soo baxo usrada islaami ma noqonayso hadii aan lagu dhaqan kitaabka Allah sallallahu alayhi wasallam subhanahu wa ta'ala qofku waxa la doonayaa inuu sunnada nabi sallallahu alayhi wasallam iyo kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala uu soo dejiyay oo guriga ku maamulo waa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga cabsado waxa Allah uu mas'uul uga yeelay waa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu amray oo fartoomo wixii nabi sallallahu alayhi wasallam oo farana oo guto sidaas way arrintu Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fattaqullaha ma sada'tum dadka wuxuu amray Allah subhanahu wa ta'ala awoodooda inta ay tahay inay Allah ka cabsaan subhanahu wa ta'ala qofku intuu awoodo oo mas'uuliyadiisu ay tahay inuu guto ayuu Allah subhanahu wa ta'ala u amraya nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis kale wuxuu ku leeyahay fattaqullaha ma sada'tum inta awoodaan Allah subhanahu wa ta'ala ka cabsada macnuhu ma ahan wax aadan awoodin Allah subhanahu wa ta'ala inuu ku kalifay oo ku dul saaray ma ahan laakiin macnuhu waxa weeye Allah subhanahu wa ta'ala mas'uuliyadda oo ku saaray u dhiibay oo ku dul saaray Allah wuxuu aqoon u leeyahay oo ka warqaba bil aadamku inay awoodaan waxa bil aadamku awoodin Allah ma dul saarin usradu khaasatan waxa loo baahan yahay in Allah subhanahu wa ta'ala isaga cabsado gabadhu xuquuq ay ku leedahay sawjaduna xuquuq ayuu ku leeyahay labadooda mid kasto kamid ah waxa la doonayaa inuu guto xuquuqda Allah subhanahu wa ta'ala oo ku waajibiyay hadii mid kamid ah uu gudo waayo xuquuqda Allah subhanahu wa ta'ala oo ku waajibiyay meesha waxa ka baxaysa wixii usra ay ahayd usradu wanaagii ay lahayd islaamiga ahayd ayaa meesha ka baxaysa laakiin hadii labadooda Ilaahay iskaga cabsadaan waxa ka meesha ka iimaanaysa usra Allah subhanahu wa ta'ala oo kaban oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo gal oo Allah subhanahu wa ta'ala wixii oo farayeelaysa ayaa ka soo baxaysa marka usra barakaysan oo diinta Ilaahay ku dhaqanta ayay noqonaysaa usradaas marka walaalka waxaan ku waarinaynaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga cabsado mas'uuliyadda saaran oo guto waxa loo dhiibana waa Allah subhanahu wa ta'ala oo u dhiibay inuu mas'uul ka noqdo Allah subhanahu wa ta'ala ayad quraan wuxuu ku leeyahay ar-rijaalu qawwamuna 'ala an-nisaa raggu ayaga u taagan oo mas'uul ka ah dumarka wax walba ayaga mas'uul uga ah inuu jiheeyo oo kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala uu ku jiheeyo asaga ayaa mas'uul uga ah guriga inuu ku maamulo oo wixii Allah subhanahu wa ta'ala uu faray inuu amro asaga ayaa mas'uul uga ah inuu salaada amro asaga ayaa mas'uul uga ah inay guriga xaajadiisa gudatana asaga ayaa mas'uul uga ah hawsha loo idmay inay ka shaqeyso inuu xusuusi oo u sheego hadii gabadhu ay qaba weyso asaga ayaa mas'uul uga ah qof walba marka qof kale inuu isxusuusiyo oo isku sheego oo qof walba uu yiraahdo walaalo waxaan waa qaldi hadii wax qaldamaan ayaa la doonayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala iska cabsado intaas ayaan ku soo koobay hadalkayga